Assalaamu calaykum. Islaantan waxay isku dayday inay dhaqdo meydka gabadheeda, laakiin markasta oo ay isku daydo inay dhaqdo, meydkii ayaa sariirta ka dhacayay. Haddaba maxay tahay sababta? Waa qiso aad u xanuun badan oo kaa oohin doonta. Haddaba intaynaan qisada bilaabin, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. Mahadsanid. Mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qiso aad u cajiib badan, sidoo kalena xambaarsan murugo iyo amakaag. Waa qiso ka mid ah qisooyinka ugu yaabka badan ee dunida ka dhacaya maalin kasta. Qisadan waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah, wax walaal ah lama dhalan, oo hooyadiis asaga kaligiis ayaa dhashay. Aabihiisana waxa uu dhintay asiga oo aad u yar. Wiilkii waxa uu damcay inuu guursado, laakiin waxa uu la tashtay saaxiibadiisna waxay u sheegeen inay jirto gabar aad u qurux badan. Waxay kale oo ay u sheegeen inay tahay gabar akhlaaq badan, diin leh, sidoo kale dhowrsoon. Wiilkii aad ayuu uga helay, waxa uuna u tagay gurigooda si uu u doonto. Gabadhii waxa uu guriga kula nooleyd hooyadeed, walaasheeda ka weyn iyo walaasheeda ka yar. Waxa uu la fariistay oo uu la sheekaystay gabadhii. Waxa uuna ku arkay wixii ay asxaabtiisa u soo sheegeen oo dhan iyo wax ka sii fiicanba. Waa ay isguursadeen. Guurkoodii kadibna waxaa dhex maray xiriir jacayl oo aad u qurux badan. Muddo kadibna waxay dhaleen canug, aad ayayna ugu farxeen. Farxadaasi kadib wax badan kama soo wareegan, waxaa dhacay musiibadaasi oo wiiqday farxaddii ay ku naaloonayeen. Gabadhii waxaa helay xanuun gudaha ah oo ay aad ula dhibanayd, laakiin gabadhii waa ay u adkaysanaysay oo uma aysan sheegin ninkeedii. Sidoo kalena maysan aadin isbitaal. Maalin maalmaha ka mid ah, gabadhii ayaa xanuunsatay xanuun aad u daran. Waxa uu soo galay ninkeedii, waxa uuna arkay inay xaaskiisa ay aad u xanuunsanayso. Ninkii si degdeg ah ayuu ugu kaxeeyay dhakhtarkii ayaa uu ku yidhi, gabadhan waxaa laga hayaa keliyaha oo keliyaheeda ma shaqaynayaan. Haddii aan la bedelinna ma sii noolaanayso, waa ay dhimanaysaa. Ninkiina waxa uu ahaa nin iska faqiir ah, mana uusan haysan hanti. Kaliya waxa uu haystay guriga ay ku noolaayeen oo kaliya. Ninkiina waxa uu ku yidhi dhakhtarkii, dhakhtarow, aniga ayaa kelidayda u saarayo mid xaaskayga, midna ayada u geli, midna aniga ayaa haysanayo. Dhakhtarkii waa uu ku raacay arrinkii, laakiin nasiib xumo waxa uu u sheegay inaysan suurtagal ahayn kelidiisa oo aysan gabadhan qaadan karin, ee la doonayo qof ehelkeeda ka mid ah si aan qaliin degdeg ah ugu samayno. Ninkiina waxa uu u degdegay guriga ay ku nooleed xaaskiisa hooyadeed. Markii uu arrinkii u sheegay kadib, hooyadii ayaa waxay ku jawaabtay, anigu waxaan ahay qof weyn, uma dulqaadan kari xanuunka qaliinka ah, mana rabo inaan xubin ka mid ah jirkayga uu naaqus ku yimaado ama aan qof u bixiyo. Wiilkii waa uu la yaabay arxan la'aanta hooyadan. Waxa uuna aaday gabadhii ka yareyd xaaskiisa ee walaasheeda ahayd, waxa uuna u sheegay arrinkii. Ayadana waxay markeedii ku tiri, haddii aan kelidayda siiyo ma helayo qof aniga i guursada. Aniga waxaan doonayaa guur iyo ciyaal ee iga raali noqo. Ninkii waa uu baxay, waxa uuna u tagay gabadhii weyneyd ee xaaskiisana ka weyneyd ee walaasheedana ahayd. Ayadana waxay ku tiri, aniga ninkayga ayaan u sheegay, waxa uuna igu yidhi, haddii aad kelidaada bixisid anigana waad iga tagi doontaa oo waan ku furi doonaa. Anigana waxaan doonayaa inaan la noolaado ninkayga iyo ciyaalkayga. Wiilkii waa uu baxay, waxa uuna ka fakiray oo uu aad ula yaabay qaabka ay qoyskani ula dhaqmayaan gabadhooda iyo sida damqash la'aanta ah ay ugula hadleen. Waxa uu qaadan waa la noqday arrinkaasi. Waxa uuna u tagay dhakhtarkii, waxa uuna u sheegay arrinkii. Dhakhtarkii ayaa yidhi, waxaa jiro dad iska iibiya keliyahooda si ay hanti ugu sameeyaan. Markaas ayaa ninkii ku yidhi, waxaan ku laabanayaa familkeeda, waayo waa dad hanti badan leh, laga yaabaa inayna caawiyaan. Waxa uuna ku yidhi, anigu waxaan doonayaa xoogaa lacag ah si aan gabadhiina ugu soo iibiyo keli. Qarashaadkaasina waa deyn aad igu lahaanaysaan aniga, waana idin soo celin doonaa muddo kadib. Xaaskayga maalinba maalinta ka dambaysa xaaladdeeda waa ay kasii daraysaa, ayuu ku yidhi. Xaaska uu qabay hooyadeed ayaa waxay ku tiri, aniga kuma siin karo hanti, maxaa yeelay hantida aan hayno waxaan rabnaa inaan ku guurino gabadheena yar sanooyin kadib.
wiilkii waa uu ka soo tagay asigoo oynaya oo isleh sidii ay dadkaani ku noqdeen ehelka gabadhan. maxaa qalbigooda sidan oo dhan u adkeeyay? naagtiisana uma aysan sheegin wax kasta oo dhacay. ninkii waxa uu ku fakiray inuu iibiyo guriga uu degnaa si uu xaaskiisa ugu iibiyo kelida ay ku noolaan lahayd. waxa uuna u tagay hooyadiis, waxa uuna u sheegay arrinkii. wayna ku faraxday hooyadii wanaagga wiilkeeda samaynayo. waa ay iibiyeen qarashkiina waxa ay u geeyeen dhakhtarkiina waxa uu ku yiri hadda ayaan u raadinaynaa keli cusub. wiilkii iyo hooyadiis waxay la joogeen isbitaalka bil iyo wax ka badan, mana aysan soo booqan gabadhii ehelkeeda midna. ehelkii gabadha waxay ku sheekaysteen in aan loo tagin gabadha haddii kale ay naga codsanayso keliyaheena, marka uma tagayno ilaa isbitaalka ka soo baxdo. ayay isku raaceen. gabadhii bukaanka ahayd waxay weydiin jirtay ehelkeeda waqti kasta. wiilkii iyo hooyadiisna waxay u samayn jireen cudurdaar si aysan uga murguun ficilka ay ku dhaqaaqeen ehelkeeda darteed. ayada waxay rabtay aragtidooda, qalbigeedana aad ayuu ugu xamuun qabay maalin inay aragto. maalin maalmaha ka mid ah gabadhii waqtigeedii ayaa soo dhammaaday oo waa ay dhimatay. wiilkii hooyadiisana waxay ku tiri aan ku karaamayno oo aan meydkeeda geyno guriga ehelkeed si meesha loogu dhaqo ama loogu maydho. waxay geeyeen gurigii hooyadii, gabadha iyo walaasheedii waxay dameen inay dhaqaan, laakiin waxaa dhacday arrin aad u yaab badan oo murugo xambaarsan. waxay dhaqaajin waayeen xubin ayada ka mid ah, xitaa farteeda, asiga oo diidan meydka inay dhaqaan ehelkeeda. waxaana loo malaynayay inuu ku dhawaaqayay meydka oo lahaa waxbaa idinka marabi, aniga waad iga tagteen markaan idin baahnaa, hadda idinma rabi. waxaa soo galay wiilkii hooyadiis, waxayna dhaqeen meydkii, wayna karfaneen. markastoo ay ku dhawaadaan ehelka gabadha waxaa meydkii ka soo dhacaya sariirta oo ku soo dhacaya dhulka. subxaanallah. intaas ayaan muuqaalkeena maanta kusoo gabagabayn doonaa. sidaas iyo nabadgelyo. haddii aad nala dhamaysatay muuqaalka waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. mahadsanid.